Dagaalo culus ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo u dhexeeyay ciidamada deegaanka ee SSC iyo ciidankii maamulka Somaliland, waxaana dagaalka uu ahaa mid xoog badan. Dad la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in dagaalka uu markii hore ka bilowday duulaan lagu soo qaaday saldhig ciidanka deegaanka ay ku leeyihiin dhanka duleedka galbeed ee Laascaanood. Ciidanka SSC ayaana iska difaacay duulaanka. Ciidamada deegaanka Laascaanood ayaa guulo ka gaaray dagaalka maanta ka dhacay magaalada Laascaanood, waxa ayna la wareegeen goobo hor leh oo ay joogeen ciidamada taabacsan maamulka Somaliland, iyaga oo sidoo kale gacanta ku dhigay gaadiid iyo hub culus. Ciidamada SSC ayaa dagaalka kula wareegay saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada Somaliland ee kaga sugnaayeen Laascaanood, gaar ahaan saldhiggii iyo gurigii uu joogay taliyaha ciidanka Somaliland ee gobolka Sool, Generaal Mahad Cambaashe. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo war ka soo saartay dagaalka ayaa sheegtay in fariisimo ciidankoodu ay ku leeyihiin Laascaanood ay weerar ku soo qaadeen kooxo ay ku sheegtay inay yihiin argagixiso iyaga oo isticmaalaya hub culus. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka, inkastoo aan la ogeyn inta uu la egyahay. Kumanaan kun oo qof ayaa ku barakacay colaadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.